waxaa maanta baaq soo saaray dallada haweenka gobolka Sanaag ee loo yaqaano dallada midnimo. Haddaba waxaa dalladan ku midoobay ururada haweenka oo aad u fara badan. Waxaa dhammaan ururadaasi ka soo jeedaan guud ahaanba gobolka Sanaag. Baaqan ayaa ahaa mid ay ku codsanayaan in xilka laga qaadi karin xildhibaan Caashe Axmed Cabdille oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. waxayna dhammaan ururada ku midoobay dalladan midnimo ee gobolka Sanaag sheegeen inay dhammaan codkoodii ku shubteen xildhibaanad Caashe Axmed Cabdille inay u matasho xubinta baarlamaanka haweenka gobolka Sanaag. haddaba waxaa baaqan ugu horreyntii ka hadlay gudoomisada boorka dallada haweenka midnimo Mulwa Faadimo Yuusuf Liimaan waxaana hadalkeedii ka mid ahaa ururada ku midoobay ururka midnimo Soomaali ku midoobay waxa weeyaan waxaanu arintay codkayga aan ka dhiibanaynaa Caashe Axmed Cabdille sidaa awgeed wax kale uma rabno waxa weeyaan waa hormuudka hablaha gabdhaha Soomaaliyeed weeye hormuudka hablaha Soomaaliyeed weeye waxa weeyaan qof isu sharaxay Afrika isu sharaxay ama Aasiya isu sharaxay madaxweyneyada jirta marka waxaan codsanaynaa gabadha maanta darajada in lagu celiyo oo naga aqbalo oo suldaanku naga aqbalo oo qoyshinka naga aqbalaan oo guurtada naga tagtay naga aqbasho hadlaya oo dallada midnimo waxaanu haysanaa in gabadha loo daayo boos. intaas kadib ayaa waxaa madashan khudbad dheer ka jeedisay abwaanad Xaawo Maxamed Xujaale oo ah afhayeenka dallada haweenka midnimo waxaana hadalkeedii ka mid ahaa laakiin hormuud Soomaaliyeed weeye halkama Soomaaliyeed weeye hooyo Soomaaliyeed weeye Caashe Axmed Cabdille waxay gaarsiisay himiladeeda inay isu soo taagto heer madaxweyne oo gabadh Soomaaliyeed ay isu soo taagta aanay jirin Afrikaba aanay ka jirin nasiib darro waa ka xunahay caqabaddan haysata haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed darteed bay ku weynaa oo darradma waayin madaxweynihii waxaan lahayn ha dagaalaminina dagaalka wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho ragga waxaanu la soo gaarsiinay heer ilaa casta markii laga soo gaaro ay dowladnimo ku asaasaan haweenka hormuudka ahaa Caashe Axmed Cabdille hogaaminaysay waa xaqiiqo wadaas inaan qofka la xaqirin qofka in la xaqiraa waa xaaraan qofka waa in loo ogolaado marka uu isagu la soo baxo kartidiisa kula soo baxo aqoontiisa kula soo baxo oo raganimadiisa kula soo baxo hormuudnimadiisa kula soo baxo halyeennimadiisa kula soo baxo hawlkarnimadiisa kula soo baxo in laga xaqiraa xaaraan waa wax xaaraan weeye waxaan u sheegaynaa darajaday doonaan ha lahaadeen anigu ma aha inaan kala gurayo oo shaksi u jeedo uma jeedo shaksi laakiin waxaanu soo jeedinaynaa marka hore baaq baanu soo jeedinaynaa mar labaadkana codsi baanu soo jeedinaynaa haddii labadaa nala ka diido isku day kacdoon baanu soo jeedinaynaa haweenka Soomaaliyeed dal iyo dabad inay wax qaban karaan haddaan inqilaab ku talagalno inaan dowladda dhismayno waa xaqiiqo weyn haddaan haweenka suugaan baan ka tiriya waxay ahayd habeen iyo maalin ha habsaaminaan lahayn horumarkii xawata koo higsadaan lahayn gurdi iyo odayo gubaabiyaan lahayn gobol dhiga nabado ku gardaadiyaan lahaan waxaan kaga baxayaa Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo Caashe Axmed Cabdille horay weligeed noo wada ha noo wado baaqan ayaa waxaa ka hadlay haween aad u fara badan waxaana ka mid ahaa Aniiso Salaad Cali Bile oo ah gudoomisada ururka haweenka ee Laasqoray Iljanno waxayna sheegtay inay salaan qaali ah u dirayso xildhibaanad Caashe Axmed Cabdille oo ka timi haweenka degmada Laasqoray waxaa kaloo madashan ka hadlay abwaanad Maryam Yuusuf Cali Ciid oo iyadu madasha ka tirisay tix buraanbar oo ay ku amaanayso haweenka Soomaaliyeed dhammaan dadkii madashan ka hadlay ayaa waxay ku baaqeen inay dhammaantood kalsooni buuxda ku taageerayaan xildhibaanad Caashe Axmed Cabdille gabagabadii madasha ayaa haweenku ku soo bandhigeen ciyaaraha hidiyo dhaqanka taasoo ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan xildhibaanad Caashe Axmed Cabdille Cabdirasaaq Cali Bilbil telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Badhan